toddobaad kadib doorashadii ka dhacday dalka Jabuuti ee lagu doortay madaxweyne Shariif Sheekh Axmed ayaa Soomaalida ku dhaqan gobolka Minnesota ee xariga Mareykanka isugu soo baxeen xaflad ay ku soo dhaweynayaan isbeddelkan siyaasadeed iyo madaxweynaha cusub. xafladan ayaa ka dhacday magaalada Minneapolis oo Soomaalidu ku badan tahay. Soomaali fara badan oo lagu qiyaasay 4,000 ilaa 5,000 ayaa halkaa isugu soo baxay. Soomaalidan qaar ka mid ah ayaa ka yimid gobolada ku dhow gobolka Minnesota sida gobolada Wisconsin, Ohio, Illinois, Nebraska iyo kuwa kale. waxaa iyana ka soo qayb galay isu soo baxan qaar ka mid ah madaxda gobolka Minnesota heerarkooda kala duwan, iyadoo qaar kalena ay soo dirsadeen dad u matala. madaxda gobolka Minnesota ee halkaasi ka soo muuqday ayaa waxaa ka mid ahaa duqa magaalada Minneapolis, Mayor R.T. Rayberg, oo isagu hadallo qiiro leh halkaa ka jeediyey. waxaa iyana halkaa bandhig faneed heer sare ah ku soo bandhigay fanaaniinta gobolka oo ay horkacayeen fanaaniin aad arag iyo codba garan doontaan. iminkana ku soo dhawaada filim gaaban oo ay Hiiraan Online idinkaga soo diyaarisay isu soo baxaas. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وصومالي سوكال أحمري إلهي هنقع في دنبي بيودا قلبي الصومالي أن الله يسجدي. dad badan oo sharaf leh oo odayaal ah oo aad iyo aad u mudan meesha way fadhiyaan caawa. annaga waxaana saaran waajib inta aan gaari karno inaan gaarsiino oon idhaahdo wixii shalay dhacay halkaa haynoo ekaadaan weji cusub iyo beyj cusub aan furanno, ilaahayna hanugu garab galo. haddaan ka bilaabna halkan way gaaraysaa meel walba oo Soomaali joogto. waxaan ka yimid magaalada Columbus, waxaan ahay Saare Muuse Cabdi Saare Barabatoy. magaaladeena aad ayaan u jecelahay. wiilka kasta waa imaadaan, laakiin caawa waa mid special ah oo aan ku soo dhaweynayna madaxweynaha cusub ee Shariif Sheekh Axmed. aan ugu hambalyeynayna Soomaali inay noqoto kii mideeya.
Somali Minnesotans. We rejoice today that you have a new president, new hope, new peace, and hope for prosperity in Somalia. It is my hope that you, your children, and your grandchildren will soon be able to travel freely as you wish to go to Somalia, but I want to tell you one important thing. And that's that we want you to know how important it is for you here in Minnesota. Minnesota is better because of all of the Somali. filimkan gaaban waxaa idiin soo diyaariyey Cabdilaahi Xuseen Cabdi Macruuf, Minneapolis, Minnesota.